بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد المجيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسو دواada janalkeena gacmo furan iyo qalbi saafiya. waa idin soo dhaweynaya Soomaali weyn, waana idin salaamaya meel walbaad joogtaan. maalin wanaagsan. maanta waxaa ka hadleynaa marar badan aniga shakhsiyan horta isku soo laabasho wanaagsan, alxamdulilah rabbilcaalamiin. waxaan rajeynayaa inaa caafimaad qabtiin oo aad wanaagsan tihiin. qof walba meeshuu joogo inuu ilaahay ku xifdiyo subxaana wa tacaala. waxa ugu qaalisan qofka uu haysto waxaa waaye caafimaadka waay. inaad caafimaad qabtid ayaan kuu rajeynayaa meel walba oo dunida ka saaran tahay. waayo haddaa caafimaad qabtid wax walba waxaa waaye okay waay. wax kaa halaysan haba yaraatee malahan. marka weligay waxaan dhihi jiray mahadsanid qof walba oo idhibaateeyo, qof walba oo idhaawaca, qof walba oo ituso wejigiisa dhabta ah. mahadsanid waayo waxbuu ii iftiimiyey. marka hadda waxaan bilaabay inaan dhaho mahadsanid. duruufaha inaan dhaho mahadsanid. mowqafyada qofka soo bixinaya xaqiiqdiisa inaan dhaho mahadsanid. ilaahay ku mahadsan in xaaladaas aad martid. mahadsanid inaad tiraahdo waayo haddii noloshaada ay toos u socoto oo aanay imaanin xaaladaha qaar, dadka qaar oo noloshaada ku jiro adiga aad malaynaysid inay yihiin safka hore, ma baranaysid, weligaa ma ogaanaysid. marka mahad celin waxaan mudan allah subxaana wa tacaala mar walbo. waxaa kaloo mudan in la dhaho mahadsanid duruufaha iyo mowqifyada imaanaya oo dadka xaqiiqdooda soo bixinayo. mahadsanid inaad dhahdid waay. waxaa dhici karto in noloshaada si u socoto ay jiir ay imaato, ama khalqalooc u imaado, amba wax yacni sidii aan la rabay, sidii aad rabtay aanay u soconin oo si kaleente ay noqdaan. nolosha waxaa waaye kulligeed waxaa waaye casharo waay. casharo waxaa laga yaabaa adiga inaad dhibsatid, laakiin mar dambe ayaa ogaanaysaa sababta. mar dambe ayaa waxaa ogaanaysaa inaa ilaahay aad ugu mahad celisid duruuftaas iyo dantaas iyo mowqafkaas imaaday ee dadkaas ku baray amba qofkaas ku baray. waayo haddaanay imaan lahayn dadkaas weligaa ma baran lahayn. wax badanna waxaa sameyn lahayd, waxbaad qadimi lahayd, waxbaad bixin lahayd oo waqti ahaado, maal ha ahaado, waxbaa bixin lahayd. waayo dad qaali ah waaye, safka hore noloshaada ayay ugu jiraan. laakiin markii ayaga ay ku tusaan wejigooda dhabta ah, waxaa imaanayo in enerjigaagii aad naftaadii gelisid ayaa imaanayo. waxaa imaanayo in enerjigii ayaga aad ku bixin lahayd aad meel kaleenta aad ku bixisid ayaa imaanayo. marka mar walbo nolosha hakadaa imaanayo. soo maha nolosha say u socoto hakadaa imaanayo. marmar joogsiya imaanayo, laakiin haddana way soconaysaa. wax dhammaanayo maaha. dhammaadkii waxaa waaye maalintaada maalintii dhamaato ee imaato oo noloshaada ay dhammaato waaye dhammaadkii. marka hakadkaas markuu imaado, masalan sheeko markii la qoraayo kaleenta, amba markii wax la qoraayo maqaal oo kaleenta la diyaarinayo, hakaduu leeyahay. soo maha joogsi uu leeyahay. hadalkii waa socdaa laakiin waa bedeli kartaa markaa joogsiga aad imaatay amba hakadkii aad imaatay. hakadkii waxaa waaye jumladan waa bedeli kartaa amba sheekadan meeshay ku socotid waa bedeli kartaa. marka noloshana saas waay. noloshana saas waay. joogsiya imaanayo waa joogsanaysaa. hakadaa imaanayo waa hakanaysaa. maxaa baranaysaa? dadkii noloshaada ku jiraya baranaysaa. waxaa laga yaabaa inaad dhibsatid adiga, inay culays inaad u aragtid duruufaha iyo waxyaabaha oo hakadka keenaa in culays aad u aragtid laga yaabaa. bini aadan haddaana anaga waxaa jecelnahay wax walbo inay ahaadaan wax toos ah oo iska socdo maalin walbo inay ahaato maalin qurux badan. sax, laakiin macnaheeda maaha
maalinta hakadka u imaado amba joogsiga u imaado amba xoogaa wax ay si kaa yihiin inaanay qurux badnayn maaha, laakiin adiga ayaa waxay tahay inaad diiradda saaraysid dhibaatadii ku haysay. adiga ayaa waxay tahay inaad weyneynaysid oo wax kalaba aadan ka fikirayn. u fiirso bini aadan haddaad tahay dabeecadahaaga waxaa ka mid ah haddii wax ay kula soo dirsaan inaad iloobaysid wax walba oo noloshaada ku jiray oo hagaagsanaa oo toosnaa oo wixii oo keliya aad ka fikiraysid oo maanta oo dhan aad siinaysid enerjigaaga, aad siinaysid maxay ahayd waqtigaaga, maskaxdii oo dhan aad confuse ku gelinaysid oo wixii aad ka fikiraysid leena waxaad rabtaa wixii inay hagaagaan ama ay toosaan oo xal u raadintii aad ku jirtaa. marka maxaa iloobaysaa waxyaabihii kaleente oo aad haysatay ayaa iloobaysaa. anaga waxaa jecelnahay nolosheena inay mar walba toos ahaato ay qurux badnaato, laakiin qof walba oo noloshiisa qalqalooc jid toos aan soo marin, jid toos yacni maka wado siraat almustaqiimka, maka wado nolosha sideedaan ka wadaa. nolosha waxaa waaye toos waa yacni caqabada ma lahan. dadka qaar u fiirso ayaga isdhaha ayagaa sheegaa adiga ma cabiri kartid mana qiyaasi kartid soo ma ogid, laakiin dadka qaar caqabadaha jirooyinkooda aaday u badan yihiin, turaanturooyinkooda aaday u badan yihiin. marka qofkaas turuntarada badan soo maraayo aada u way aragsan yahay, aad ayuu maxay ahayd u maskax furnaanaya, aada u caqli badnaanaya. caqliga lagu sheegayo waxaa waaye waqtigii waahayna wax ku baraan. caqliga shay waxaa waaye u dhalasha waa qayb ka mid ah, qaybna waxaa waaye nolosha khibradeeda iyo maxay ahayd waxaa waaye nolosha khibradeeda iyo tijaabooyinkeeda ayaa kordhiya. waayo markaad la kulantid maxaa la dhahaa problemyo, markaad soo xaxalisid wax badan oo noloshaada ka mid waxaa waaye way aragaa tahay. markaad kasoo gudubtid turanturooyin badan ama ha laguu maleego ama danta iyo duruufaha waqtiga iyo waayaha ku badaan. problemka nolosha wuxuu yahay midna waxaa waaye dad ayaa koosgareynaya oo sababtoodi leh, midna waxaa waaye waqtiga iyo waayaha ayaa koosgareynaya soo cidna malahan sababteeda. waxay ku barayaan labadaba waxaa waaye indhahay kuu furayaan, labadaba waxaa waaye caqliga ayay kuu furayaan. waayo waxaa baranaysaa qof walba noloshaada kaalinta uu kaga jiro, qof walba noloshaada kaalinta uu kaga jiro ayaa baranaysaa. marka waxaa imaanayo markaad kasoo gudubtid inaad tiraahid mahadsanid qof walba oo i dhibaateeyo mahadsanid, qof walba oo indhaha ii furayo mahadsanid. haddana waxaa imaanayo mowqif walba oo aniga wax i barayo inaad tiraahid mahadsanid, mowqif walba oo hurdada iga kiciyayo mahadsanid inaad tiraahid, oo soo saaray xaqiiqooyinka qaar oo dadka qaar nolosheena ku jiraan. waayo haddii mowqifkaas aanu imaan lahayn weligaa waxaad noqon lahayd qof maxay ahayd dhoohan ah, qof dhoohane ah amba dhoohan ah oo maxay iska socdo oo qofkii mar walba waxaa waaye adiga kaalinta aad u malaynaysid inuu noloshaada kaga jiro ayuu kaga jiraya. laakiin ilaahay subxaana watacaala waxaa waaye addoonkiisa u jecelyaha tahay oo daacad ah. waa dhibsanaysaa waqtiga aad imtixaanka ku jirtid, waa dheeryahay xataa waqtigaas waxaa waaye waqti aan dhammaan wuxuu kula muuqanayaa sanad camal, maalintii inay bil taha u malaynaysaa aanay soconayna u malaynaysaa. laakiin waxay noqonaysaa wax ilaahay subxaana watacaala aad ugu mahadisid markaad kasoo gudubtid, xataa haddaadan kasoo gudbin. waayo waqtigaas la joogo waa inaad horta xasuusatid mowqifkaas dhacay muxuu adiga kuugu adeegay, muxuu adiga ku faa'iideeyey mowqifkaas dhacay. nolosha mar walba dhinac xun lagama fiiriyo. sax waxaa imaaday mowqif adagaa masalan kugu dhacay waayihii iyo waqtigii wax ku baraayo durustii nololeed ayaad qaadanaysaa. wax adagaa imaaday oodan xamili karinaa imaaday. aragtidaada waa inaadan xamili karin, laakiin waa xamili kartaa wax walba oo kugu dhaco. waxaa waaye waa xamili kartaa. haddaadan xamili karin ilaahay subxaana watacaala ma kugu imtixaanaa, ilaa waxaa awoodid oo keliya ayaa kugu dhacay. laakiin adiga waxaa u muuqanaysaa markii wax ay ku haystaan qof daciif ah, qof aan xamili karin. waxaad leedahay aniga waxaan waa iga tanbadan yihiin ma xamili kari, laakiin waa xamili kartaa wixii adiga kusoo saarayay. waayo haddii noloshaada ay iska socoto kabar iska socoto oo caadi ay tahay
maalin walbo wax yani wax isbedel aanu dhiceynin, amba horumar ha ahaado amba hoos u dhac ha ahaado, labadaba waxbay ku barayaan. Anaga waa dhibsanaa markii hoos u dhaca u imaado, waa dhibsanaa markii ay qalafsanaan ay imaato, waa dhibsanaa markay dan iyo duruuf ay adag ay imaato, waa dhibsanaa markay waqtiga iyo waayaha waxna barayaan. laakiin duruusta kuwooda waxaa waay maskaxda iyo caqliga iyo qalbiga ku daawacma, kuwaas waay duruusta waqtiyada adag adiga aad qaadatid. duruusahaas waxay ka qiimo badan yihiin kuwa inta hantida lagu bixiyo jaamacadaha loo aado, ayay ka qiimo badan yihiin kuwa soo saarayo dadka noloshaada ku jira xaqiiqadooda dhabta ah. kuwa soo saarayo dadka qaar waxay u muuqanayaan kuwa sugaayay inaad dhacdid ayay u muuqanayaan. dadka qaar waxaa soo baxayo maxaa la dhahaa dheemankoodii, waxaa soo baxayo xaqiiqdoodii. dadka qaar waxaa laga yaabaa in noloshaada adiga aad u malaynaysa inay ku jiraan kaalinta 10aad oo kaleente oo adiga aad fogeynaysay, laakiin ay imaadaan kaalinta 1aad, ay kuu soo bixiyaan xaqiiqda iyo wax ayaga ay kuu qabaan, ay ku tusaan kaalinta ay noloshaada kaga jiraan. muhiimadda ma ahan dadka inay wax ku tarayaan, muhiimadda ma ahan dadku inay wax kuu geysan karaan, mana kuu geysan karaan, mana ku tari karaan ilaa biidnillaah. ilaahay amarkiisa ma ogiye waxna kuma tari karaan, waxna kuma geysan karaan. laakiin hubanti waxaa ah xaqiiqaha dadka inay markay soo baxaan adiga aad dhibsanaysid, adiga aad xanuunsanaysid, laakiin aniga mar walba waxaan dhahaa mahadsanid. mowqifkii iyo khibradii kaa baray mahadsanid. waqtigii iyo waayihii kaa baray amba soo saaray xaqiiqdaadii mahadsanid. ka hor inta aadan u mahad celin dadka, u mahad celi dantii iyo duruuftii soo saartay qofkaas xaqiiqdiisii. haddii kale waxaad ahaan lahayd qof warmoog ah oo iska socdo. warmooge waa iska socdaa, waxuu ma oga. qof walba waxaaba anaga nolosheena anaga kaalinaan geynaa. dadka qaar 1aad 2aad 3aad markii laga soo tago ee faamilka oo 1aad hubaalti inay